السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام معان كدب برنامجكينا waxaan kaga hadli doonaa arrin aad xasaasi u ah una baahan in laga hadlo isla markaana mudan in dhalinyarada wiilasha iyo hablaha laga baraarujiyo. Dhalinyaradena Soomaaliyeed aad ayay u taahayaan hadii ay ahaan lahaayeen wiilal iyo gabdhaba. inkastoo dhibaatada wiilasha la dareemi karo waana mid banaanka iska taal waxaad moodaa in hablaha dhibkooda ay qarsanayaan. Barnaamijka waxaan soo jeedinayo anigoo ah Cabduladiif Maxamed Yuusuf. Barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa insha Allah dhibaatada ay dhalinyarada ku qabaan waxa loo yaqaan siigaysiga. Afka Ingiriiska lagu yiraahdo masturbation, afka Carabiga lagu yiraahdo caadatu sirriya ama istimnaa ama jundi umayra. dhaqankani waa mid aad u foolxun wuxuuna sababaa in wiil iyo gabarba ay gacmahooda u galmoodaan midaasi oo keenta inuu yaraado guurkii xalaasha ahaa. maxaa yeelay wiil gacantiisa beerka kaga dhacaya ma kula tahay inuu doonayo guur? Jawaabtu waa maya. Siigaysigu waa in unugyada galmada gacanta lala tago kadibna biyaha ama shaawada gacanta la iskaga keeno. waxaana arrintaas sabab u ah in qofka uu baahi badan u qabo galmada ama uu daawado muuqaalada anshaxumida ah. Haddaba siigaysigu caafimaadka saameyn ma ku yeelan karaa? Dabcan haa. sida aad ka akhrisan karto warbixinada waxay muujiyaan sare u kaca dhibaatooyinka siigaysigu uu leeyahay inay tahay mid aanan xad lahayn. Warbixinada badankood waxay qoraan haddii uu qofka aad u qabatay xaaladda siigaysiga wuxuu noqonayaa mid qanaacadiisu ay yaraato, yacni xitaa hadduu 4 xaas guursado ma dhaafayo dhaqanka siigaysiga ah. waxaa jira warbixino lagu sheegay in siigaysigu uu yahay caafimaad. haddaba haddii ay sidaas tahay waa maxay taaha ama cawaadka ka soo yeeraya ragga dhalinyarada ah? Haddaba waa maxay xanuunka baas ee saameeyay jirkooda? Waxaan dhihi karnaa 10kii wiil ee meel wada fadhida 9 ka mid ah ayaa gacmahooda ka zinista oo aanan diyaar u ahayn inay guursadaan, iyo hablihii oo iyagana iska dhigay kuwo buur dahab ah ka samaysan. Waalidkii oo aanan ogeyn dhibka iyo rafaadka carruurtooda haysta oo har iyo habeenba ay kaga dhammaan la'yihiin suuliga. Rag iyo dumar badan ayaa ku andacoonaya in siigada ay kaga gaashaantaan ku dhicidda zino iyo faaxisho, laakiin waxaaba ka hoos baxsan in tanina ay tahay faaxisho tii ugu weyneed maxaa yeelay gacmahooda ayay ka galmoonayaan. Haddaba barnaamijkani waxaan ku soo qaadan doonaa sida dhaqankaasi foosha xun dhalinyaradeenna wiilasha iyo gabdhaha iskaga dhaafi karaan. inkastoo aad dhaqan ka dhigatay waxaase hubaal ah qofkii alla weyne si dhab ah u gargaar weydiista inuu ka samata baxayo dhibkaasi. inta aanan u gudagelin qaabka ama nidaamka aad iskaga joojin karto dhaqankaasi aad gacantaada kaga ashahaadisay. haa waa run, waa sidaas. gacantaada way kaa soo dacwootay wiil yahow ama gabar yahay. caadaysiga siigada waxay dhowr dhibaato oo caafimaad darro ah oo ay ka mid yihiin daal iyo tabar darri joogto ah, dhabar xanuun ku gaarsiiya heer aad dhakhtar u tagto, timaha oo kaa yaraada ama kaa daataanba, biyo bax degdeg ah iyo dareen la'aan, howlgab dhanka dareenka kacsiga oo kugu dhaca, aragga oo caad kaa yeesha, waqtiyada hurdadaada oo aad u yaraada waxaana lagu magacaabaa insomnia. bisqilneyda ama xiniinyaha oo ku xanuuna, xanuun joogto ah oo aad ka dareento boqor maskeedka ama dabaqanaanta. qofka oo la qabsada dhaqankani welibana waxaa laga yaabaa inaad weligaa iska goyn weydo dhaqankani xitaa adiga oo guursaday. wuxuu kaloo keenaa waxa loo yaqaano semen leakage oo ah in biyaha ay soo dareeraan ayada oo wax dareen kacsi ah uusan jirin sida kaadida oo kalena ay kaga soo daataan. dhibaato nafsaani ah sida hilmaamida iyo xifdin la'aanta iyo inaad xiiseyso ama la qabsato daawashada muuqaalada foosha xun noocay doonaanba ha ahaadaane, iyo kuwo kale oo aanan halkan ka soo koobi karin. dabcan 11kaasi qodob 10 ka mid ah dhammaantood waad isku aragtay, laakiin dhibaatada taagan waxay tahay in aadan diyaar u ahayn inaad xaqiiqda istusto. haddaba sidee iskaga dayi kartaa dhaqankaasi? ugu horreyntii jooji daawashada muuqaalada dareenkaaga kicinaya. waxaa habboon in naftaada aad runta u sheegto, go'aanna aad ku gaarto sida aad iskaga xiri lahayd kanaalada ama website-yada muuqaalada foosha xun la soo geliyo adigoo iska xiraya ama block saaraya. waxaa jira wadooyin badan oo aad iskaga xiri karto website-yada ama TV-yada muuqaalada foosha xun la soo geliyo ee beenta ah, oo ay ka mid tahay inaad la xiriirto shirkadda internetka bixisa oo aad ka codsato inay kaa xiraan muuqaaladaas. sidaasi oo kale waa inaad ka fogaataa daawashada filimada ay ku jiraan muuqaalada dareenkaaga kicin kara oo afka Ingiriiska lagu yiraahdo explicit content. ma ahan muuqaalada galmada oo kaliya, waa inaad ka fogaataa wax waliba oo kicin kara dareenkaaga rabitaanka galmada. ku nagaadin suuliga ama musqusha. ogow walaal, duqii sheedaan ahaa inuu suuliga kuu fadhiyo. markaad musqusha gasho isku day inaad sida ugu dhaqsiyaha badan uga soo baxdo qolka aad danahaaga ka dhamaysato. ha ku nagaadin suuliga. haddii aad ku nagaato suuliga
duqii shaydaan ahaa wuxuu kugu qalqaalinayaa inaad samayso ficilkaasi foosha xun oo marnaba ha ilaaw in odagii shaydaan ahaa inta aad samaynayso uu kuu qurxinayo faaxishadaasi kadibna marka aad siigaysiga dhamayso waa uu kaaga baxayaa oo waxaad dareemaysaa inaad foolxumo ku kacday waana dhaqanka shaydaanka oo wax waliba xumaan ah kugu riixayo kadibna wuu kaaga baxayaa adigana waad ka shalaayi doontaa ogow walaal haddaba sidaasi oo kale ayuu aakhirana balanta kaaga baxayaa ee is-ogow kana fogow inaad moobeelkaaga la gasho suuliga maxaa yeelay laga yaabee inaad waxyaabo dareenkaaga kicin kara aad ka daawato noqo qof mashquul ah ogow marka aad kaligaa guriga joogto waa fursadda uu shaydaanka kugu soo weerar tagi karo wuxuuna aad u jecel yahay inuu kugu qalqaaliyo ficilkaasi aadka u foosho xun sidaasi daraaddeed marka aad kaligaa tahay isku day inaad ismashquuliso iska fogee muuqaalada aan anshaxa u wanaagsanayn waa inaad iska fogaysaa muuqaalada anshaxumida ah ee guriga ku yaala ha taaban xubnahaaga kuu gaarka ah isku day in aadan taaban xubnahaaga kuu gaarka ah ka fogow taabashada falfalaadka ah ee aad ku samaynayso xubnahaaga kuu gaarka ah sababtoo ah haddii aad taabato duqii shaydaan ahaa gacantaada ayuu kula seexinayaa si aad uga sinaysato adigana waad ka shalayn doontaa iska bedel dhaqankii hore bilow dhaqan ka duwan midkii hore oo waxaad bilowdaa wax akhrinta gaar ahaan quraanka buugaagta sheekooyinka ciyaaraha kubadda cagta si aad naftaada u mashquuliso waa inaad guursataa haddii aad awoodo inaad guursato fadlan maantaba ku dhaqaaq waa xalka kaliya ee ugu dhow inaad kaga fogaato siigaysiga wiil yahow ama gabar yahay guurku waa gaashaanka sharta iyo zinada oo dhan go'aan gaaris waa inaad go'aan dhab ah ka gaartaa sida aad uga fogaan lahayd ficilkaani xun ogowna wixii alla si daacada loo weydiisto inuu alle kugu garabgalayo wiil yahow ama gabar yahay ogow shahwada aad gacantaada bannaanka iskaga keenayso inay yihiin caruurtaada laga yaabee inuu ku jiro mid dhakhtar ah ama caalim weyn ah ama injineer ah ama mid dunida wax la mahdiyo ku soo kordhiyo haddaba waxaan kuu sheegayaa daawada ugu dambaysa oo aad iskaga dayn karto siigaysiga maxay kula tahay daawada waa daawo sax ah laakiin inaadan ku qancin ayaa laga yaabaa ogow walaal salaada aad tukato ma ahan salaad sax ah sidaasi darteed ayaad u samaynaysaa siigaysiga ama faaxishada oo dhan haddii salaadaada ay toosnaan lahayd ma aadan siigaysan lahayn laakiin salaada aad tukato ayaa wax weyn ka qaldan yihiin allaha ka aqbalee maxaa yeelay alla weyne wuxuu leeyahay inna as-salata tanhaa 'anil fahshaa'i wal munkar xaqiiqdii salaada waxay hor istaagtaa oo ay ku diidaa faaxishada waaweyn noocay doonaanba ha ahaadaane zino galmada aan banaanayn oo ay siigada ka mid tahay iyo munkarka shirkiga iyo kufriga oo dhan haddaba walaal haddii aad noloshaada rajo weyn ka leedahay fadlan ka fogow siigaysiga